waxaa maanta dekedda magaalada Boosaaso ku soo xirtay markab isniintii laga qafaashay xeebaha degmada Caluula ee gobolka Bari waxaana muddo 3 cisho oo gacanta ugu jiray kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay ahaayeen kalluumaysatada deegaankaasi siideynta markabkaasi waxaa gacan weyn ka geystay ciidamada badda Puntland iyo waxgaradka deegaankaasi oo ku guuleystay in si nabad ah ay ku wareejiyaan markabkaasi iyo waliba shaqaalihii saarnaa xilli hore ee saaka ayaa warbaahinta loo kaxeeyay meel masaafo u jira dekedda Boosaaso waxaana halkaasi ku sugnaa markabkaasi iyo waliba shaqaale gaaraya 8 shaqaale oo dhammaantood u dhashay dalka Sri Lanka intaasi kadib xaflad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda Boosaaso waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland madax ka socotay Djibouti iyo waliba saraakiil ciidan ugu horreyn madaxweyne ku-xigeenka Puntland Engineer Cabdixakiin Camey ayaa sababta ay dhalinyaradani ku afduubteen ku micneeyay haddaba waxay la tahay waxyaabo badan baa meelaha laga sheegayaa waa run dhalinyaro fuushay markabkan dhalinyaro kalena waa ku biirtay laakiin sababta dhalinyaradu meesha ay u fuushay ama ugu hungurootay inay maanta wax laga soo gudbay 3 sano 4 sano ka hor ay maanta dib ugu kacaan maxay tahay taa weyn adduun weynuhu isweydiiyaa ummadda Soomaaliyeedna isweydiisaa taasina waxay tahay waxaa sababay dhalinyaradaas oo nolol maalmeedkooda ka soo saara xeebaha iyo kalluunka ku jira badaha Puntland in ay fursad u waayeen inay kalluunkii ka shaqaystaan in la carqaladeeyay ama lagu qasbay in xitaa fishing gearska ama waxyaabihii ay ku kalluumaysanayeen in laga qaatay Maxamed Aadan Waabari oo ah sarkaal ka socday dawladda Djibouti ayaa sheegay in dalka Djibouti uu ku faraxsan yahay siideynta markabkani annaga hadaan reer Djibouti nahayna aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii markuu maqlay markabkii baa la fasaxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle aad ugu farxay una filayay inay soo dhacayso dhinaca kale kabtanka waday markabkani ayaa dareenkiisa ka hadlay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dib xorriyadooda ay u helaan kadib khatar adag ay wajaheen sida uu hadalka u dhigay So we are enjoying and telling all my crew members, hey, we are reborn. We are going to see our families be happy, you know. And we want to thank also the Sri Lankan government who are the good job they did it, you know. So many of which as our second officer mentioned, so many people. So I don't want to repeat the same thing. I have to attend so many other works to do and what we are wishing is safely we came here from Bosaso and now we want to go safely to a safe destination. So the safe destination is Sri Lanka. So we will fly from here to Sri Lanka. We are not concerned with the company or anybody else. They can make all arrangements to take their ship where they want to go. Because now we are our crew members, everybody completely out of order. Because why? They was dead and born. So they don't have mind. You see, they don't have mind. You see, so everyone should realize this and send us to a safe place.